بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada muuqaalka xiga ee Nuruddin Channel dhamaantiin waxaan leeyahay dadawayaal mar labaad iyo mar koowaad iyo mar labaad soo dhawaada Ramadan Kareem dhammaan muslimiinta waxaan ugu hambalyeeyaa meel kasta ay joogaan maalintan barakeysan ee bisha Ramadaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala xariistiisa aan ku helnay waxaan leeyahay qaasatan ummadda Soomaaliyeed Ramadan Kareem hadaan intaas ugu gudbo runtii waxaan rabaa maanta inaan muuqaal yar ama kaliya yar oo gaaban in la wadaago ku saabsan Excelka sidaad ogtihiin ba Excelka faa'iidooyin badan ayuu u leeyahay ummadda adduunka nool oo dhan dhinac kasta hadii laga fiirsho ardooyinka waxa la yiraahdaa kambaniyada jaamacadaha iskuulada meel kasta wuu anfacaya runtii sidaad ogtihiin ba qof uusan anfacayn sida dhammo jirto Excelka waana aalad aad iyo aad u muhiimsan ama waxa weeye program aad iyo aad u muhiimsan weeye halkan waxaan rabaa maanta inaan kasoo gudbiyo qaabka sida hadda u jeedaanba waa waxa weeye markay ardaydu iskoolada imtixaanaadka ay galaan oo kale for example imtixaanaadka ay galaan waxa la sameeyaa waxaad aragtaa mar walba oo aad aragtaa in imtixaanka qaabka saxda loo soo dejinayo aad aragtaa marka saas ogeed ayaan rabnaa waxyaalo badan galabta inaan halkan ka soo gudbiyo okay waxaan rabaa inaan sameeyo markii doonayso kala color ba meesha saaran laakiin anyway dib ma lahan okay waxaan rabnaa markii inaan sameeyno qaab nooce lagu sameeyaa waxaad aragtaa kambaniyada oo kala in ay ku xisaabsadaan lagu diiwaan geliyo shaqaalaha waqtiga time-ka soo xaadiro iyo time-ka imaanayo iyo micnaha maqnaashiisa iyo bishinta ka soo xaadiray iyo adig kambaniga hoolihiisa dhan waxyaalaha badan loo isticmaalo waxa Excelka loo isticmaalo inta badan sidaan wada ognahay okay marka hadda waxaan doonayaa aniga clipkan yar oo soo qaato waxay tahay in aan ardada aan ka caawiyo qaabka ardada natiijooyinka loo soo dejiyo waxaad arkaysaa iskoolada iyo jaamacadaha waxay kala duwan yihiin waxa kamid ah daawadayaal jaamacaduhu waxay ugu duwan yihiin iskoolada waxa weeye wax kale ma aha waxay ugu duwan yihiin waxa waaye iskoolka badana markii natiijada ardayga la soo dejinayo waxay isticmaalaan wax la yiraahdo number in isticmaalaan okay number isticmaalaan university-gana taas way ka duwan tahay meelaha qaar marka eegtid oo badanaa waxay isticmaalaan xaraf isticmaalaan ayagu A B C iyo D waxyaalaha xarfahaas ay isticmaalaan okay aniga waxaan doonayaa marka halkan ku sii dheereen muuqaal yar oo ku saabsan qaabka iskuulada isticmaalaan okay
halkan waxaan ku qoraynaa name-ka name-ka student-ka name-kiisa ku qoraynaa student name. Okay, shaxda ku xigtana waxaan ku qoraynaa ilaa haduu yiraahdo ka for example ardayga magaciisa Xasan Faarax waa sambal yar oo aan rabo inaan ku tusiyo hadda ardayda intirada laagta adiga waa gashanaya iyo Cali. Okay, bal haddaan bi imaado waxaan ku qorayaa maadooyinka ardayga for example tarbiyo Carabi intana English ayaan ku qoranayaa aniga waan soo gaabsanayaa intana waxaan rabaa inaan ku qoro natiijo okay intana average aan ku qoraynaa average intana average ayaan ku qorayaa. Okay, halkaan imaanaynaa waxaan ku qoraynaa ardayga buundadiisii halkaan waxay ku qortaa ardaygan for example 99 oo keenay 9 oo keenay Faarax kan kale wuxuu keenay 88 intana wuxuu keenay koo soo qaad 99 kala. Okay, inta waxaan Faaraxna wuxuu keenay 89 waa sambal yar ya. Okay, ardo waxaa qaldamay okay kan soo yaray bi halkaas sidaas. Okay, CD gamer inta waxaan kusoo qoray tarbiyo intana Carabi ku qor yar baa qaldamay raali ahaado intana English intana average aan ka rabay intana waa iska tirtirayaa natiijo ayaan ku qoranayaa ilaahay idinkiis natiijo intana iga tirtir average igu qor. Okay, markaad tarbiyo halkaas bay tagaysaa what happened dhib ma lahan Carabina 88 isagan tarbiyana 99 Xasan sidoo kale 99 Cali sidoo kale 99 intaana أنا سنبل يرى أنا كنت سيمر وأنا كنت سير ديرادو أنتنا ديحنيشن
86. okay kaas waxaan ku sameeynaa 56. okay marka waxaan rabnaa inaan natiijadan sameeyno intii markaas waxaad tagaysaa fx taas summation fx sum ayaa leedahay kadib waxaad sameynaysaa maadaama mobile aan isticmaalayo computer aan badan isticmaali jiray maanta computerka cilada iga yara imaatay sorry ilaa inta lambar aad rabtid inaad isku dartid ayaad ku dhufanaysaa okay ayaa leedahay kadibna halkaas ka soo baxaysaa haddana lambarka ku xigo imaaw summation tag sum dheh okay sidoo kale samee saas kala samee lambarka kale oo ku xiga sum dheh adicinkaas baad ku wadaysaa okay natiijadaas aan u sameynay saas baad ku sameynaysaa computerka uu ka fudud yahay computerka markaa sum tiraahdo okay waa iska tiraysaa lambarka ugu horeeya oo xisaabta aad ku dhufanaysaa kadib shift waxa la qabanaya laba dhibcood lambarka ku xiga taabanaysaa equal ayaa leedahay si toos ay jawaab soo boodaysaa okay waxaan rabnaa marka inaan ilaahay idinkiisa daan sameyno natiijadii waa mugta average aan sameeynaa marka ardaygaas averagekiisa aan sameeynaa hawee waxuu noqonayaa asagana summation fx tag average dheh ku dhufo bisha ifur waxaa leedahay 275 laba dhibcood shift kan ma qabee laba dhibcood laba qayb shada 3 okay waxaan rabnaa inaan sameyno average kana sameynaa rabnaa ciladar ogeed ayaan xogaa yar dib yar oo dhacay waxaan rabnaa average lambarkan 275 soo maan okay computerka only waxaad sameynaysaa lambarkaas ayaad average markaad dooratid soo sameeyay lambarka ayaad dooranaysaa then waxaad ku sameynaysaa lambarka ugu horeeya aad kali ku siinaysaa shift aad hadal taaban laba dhibcood kadib lambarka u dambeeya aad ku taaban laba lambar ugu dambeeyay mar walba ka ugu horeeya ugu dambeeya aad taabanaysaa kadib okay ayaa leedahay way soo bixaysaa laakiin hadda waxaan sameeynaa fx noogu dhufo average taabo waxaad qoraysaa 275 loo qaybsado 3 okay saas soo baxaysaa kan kala taabo fx taabo average aan leenahay adiga saas baad ku wadaysaa 243 loo qaybshay 3 saas aan ku wadaynaa
kan ku dhufo afx leh average ku dhufo xalada 250 loo qaybsado 3. okay sidaas markaa sameydid ilaahay haduu yiraahdo waxaan tagaynaa marka average kan sameeyna runtii intii ka badan adigu waad sameyn kartaa oo hadii ka badan tahay waxa sameyn kartaa had waqti u yar inta ayaan soo gudbiyay inta kale oo soo wada runtii waxaan kaga mahadcelinayaa sida wanaagsan oo garab taageertii mar walba runtii waxaan leeyahay meel ka soo jeedo garab wanaagsan qof bilaadanka intuu wax sameynaya cilad way ka dhici kartaa bilaadan baan nahay ma dhameystirmin qof walba meel buu cilad ka leeyahay hadii cilad yar jirto comment-iga igu sheegi kartaa idinku maasan.